قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu kahf. waxaa noogu soo dambeysay dhaalimiinta iyo inuu ilaahay tilmaamay qofka dulmi badan inuusan jirin qof la xusuusiyey oo la waaniyo lagu kor akhriyey aayaadka ilaahay, intaa ka bacdina ka jeestay. wuxuu hilmaamay buu yidhi ilaahay wax allaala waxay labadiisii gacmood hormarsatay oo xumaan ah, quluubtooda akinna ayaan yeelnay saysan xaqa u fahmin, dhagahoodana waqriyo culays ayaan yeelnay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. dhagahoodana dhagajig ayaan markaa ka samayno, xaqii ayay ka culus yihiin. idan haddii loo waco oo xaqa iyo diinka loogu waco maba hanuunayaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. rabbigaana waa alla dembi dhaaf u saaxiiboo naxariis badan. hadduu dadka ku qaban lahaa dhibka iyo dembiga ay kasbadeenna cadaabkaa lagu soo dadejin lahaa, laakiin ilaahay mawcid iyo wacdi ayuu u yeelay, sukadiisana la heli maaya meel la galo. taas aad u jeedaanee lasoo halaagay waa qaryooyin. waan halaagnay markay dulmi faleen, halaagoodiina mawcid baa loo sameeyey buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. waqti xadidan oo jaan go-an yaa ilaahay ugu talagalay. waqtigaa markii la gaaraana marka cadaabkii u yimid. meesha waxaan ka gelaynaa qiso ka mid ah qisooyinka ay suuraddu markaa tilmaantay ka hadashay, waana nebi muuse calayhi salaam iyo khadir. qisadii markaa dhex martay ayay tilmaamaysaa. meel kaloo qur-aanka looga hadlay qisadaani markaa ma jirto. meel kaloo looga hadlay qisadaani markaa ma jirto ilaa meeshan maahane. nebi muuse calayhi salaam sida xadiisku tilmaamaya reer bani israa'iil khudba u akhriyey. markii khudbadiisii la dhaceen bay dhaheen dadka yaa u cilmi badan. anaa u cilmi badan buu yidhi. ilaahay ayaa canaantay subxaana wa tacaala waqti cilmiga ilaahay uu u tiirin waayey. markaasaa la yidhi addoonkeenii khadira ayaa kaa cilmi badan. intaa kadib ayuu nebi muuse xiraystay, waa baxay oo wuxuu aaday dhankii khadir markaa joogay. ilaahayow seen ku heli karaa buu yidhi. qaad baa la yidhi migtal ama dembiil malaay ku qaad, meel allaala meeshaad ku weyso ayuu markaa ku sugan yahay. nebi muuse wuu ambabaxay marka calayhi salaam. shaabkiisii iyo wiil dhallinyaro ah oo dhici karta in xirtiisuu ka mid yahay ayaa raaco yuushic bin nuun markaa la yidhaahdo. qisadu taasay markaa ka bilaabanaysaa. wa id qaala muusa, wadkur waxaad xustaan rasuulkii allow id waqti qaala uu yidhi muusa, nebi muuse lifataahu shaabkiisii uu ku yidhi laa abaraxu ka zuuli maayo inaan socdo. laa abaraxu anigu ka istaagi maayo socod iyo inaan socdo xataa abaluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni. labada badood meesha ay ku kulmaan waa baddii faris iyo ruum baa la yidhaahdaa. ow amadiya ama aan socdoon gudbo xuquban zaman dheer. xuqubka waa waqti dheer inaan socdo, xataa ugu yaraan amase cadad ahaan 40 sano oo kale ah ilaa inaan socdo amase aan meeshaa gaaro ka zuuli maayo oo socodkayga joojin maayo. nebi muuse waa anbabaxo inuu xiraystuu rabaa. cilmi doon waaye, cilmiga waa loo safraa, dhibna waa loo maraa. wa id qaala muusa, waxaad xustaa waqti nebi muuse uu ku yidhi lifataahu shaabkiisii, wiilkiisii ama dhallinyarihiisii, laa abaraxu
ka istaagi maayo ka zuuli maayo inaan soconayo xataa abaluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni labada badood majmacoodii meeshay markaa ku kulmaan aw amdiya ama aan gudbo oo aan socdo xuquban zaman dheer iyo muddo fog falamaa balagaa markii ay gaareen majmaca baynihimaa labadaa badood meeshay ku kulmayeen nasiya waxay iloobeen xuutahumaa malaygoodii kalluunkii ay wateen ayay hilmaameen faatakhada wuxuu ka samaystay malaygiina sabiilahu jidkiisii filbaxri oo badda dhexdeeda ahaa saraban waddo ayuu ka samaystay sarab meel dul ah ayuu ka samaystay waa meel inta la galo lagu socon karo gadaalna markaa ka soo xiran meeshaasuu samaystay oo malayga mar allaala markii uu ka baxay dembiisha ayuu badda dhex galay baddii mar allaala markii uu dhex galay meel allaala meesha uu biyaha ka maro dib isuguma soo noqonayn biyaha ilaan biyo waxaa lagu yaqaanaa caadadiisa markaad gacanta saa u geliso amase aada waxoogaa kala qaadqaado isla markiina isku yimaadaan marka saa ma noqonina malayga meeshuu ka baxay dhulka bacaadka ah oo inta u la soo qaaday lagu xariiqay oo kale say tilmaanay calaamad u noqoto saasoo kaleu markaa ka sameeyey falamaa balagaa markii ay gaareen majmaca baynihimaa lashay ku kulmaan labadaa badood baynkooda nasiya waxay iloobeen xuutahumaa xuudkoodii malaygii ay wateen ayay hilmaameen faatakhada wuxuuna ka samaystay malayga sabiilahu jidkiisii oo filbaxri badda dhexdeeda uu ka qaaday saraban meel sarab ah ayuu ka sameeyey waddo iyo meel duleel ah amase meel waddo ah ayuu markaa ka sameeyey sida noo imaan doonta nebi muuse waa hurday mar allaala markii uu seexday wiilkiina yuushic bin nuun malayga uu dembiisha ku wado uu ag fadhiyo meesha ay fadhiyeen biyaha ayaa waxaa la tilmaamaa biyo la yidhaahdaa maa-ulxayaat ama baxrulxayaat inay ahayd biyaha wax allaala wixii gaara way noolaanayeen intaa kadib baa waxaa dhacday inuu markuu soo booday biyo malaygii oo ku jira dembiisha suuragalna ah inuu dubnaa uu shiilnaa in biyihii intay gaareen uu noolaaday baddiinuu markaa dhex galay badda markuu saa u dhex galay sarab ayuu ka sameeyey waddo meel calaamad ah oo qof allaala qof ka raba malayga meesha uu aaday inuu ka daba tago uu mari karo falamaa balagaa markii ay gaareen muusii shaabkiisii majmaca baynihimaa meeshay labadaa badood ku kulmaan baynkooda nasiya waxay hilmaameen xuutahumaa kalluunkoodii ama malaygoodiiba faatakhada wuxuu ka sameeyey sabiilahu jidkiisa oo filbaxri badda dhexdeeda uu ka marayna saraban waddo ayuu ka sameeyey iyo meel hul ah oo markaa la geli karo falamaa jaawazaa markii ay gudbeen war allaala markay gudbeen qaala nebi muuse wuxuu ku yidhi lifataahu shaabkiisii aatinaa nasii hadaa'anaa qadadeena raashinkeenna nasii oo kalluunka noo soo bixi aan cunne waayo laqad laqiinaa waan kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa ee kan ah nasaban daal iyo tacab iyo dhib baan kala kulannaye noo soo bixi buu yidhi aan cunne waayo haddii ayadoo meesha la joogo ay ogaan lahaayeen ama wiilka uu u sheegi lahaa ileen asagaa u jeeday kalluunka markuu dembiisha ka baxayay hadduu u sheegi lahaa waa meeshay raadinayeen waata loo tilmaamay meesha aad kalluunka ku weysaan buu ku jiraa laakiin yarkii wuu iloobay muusena calayhi salaam ma dareemin masa tacabka taabashadiisa iyo daalka dhibkiisa ilaa markii makaankii la rabay uu gudbay maahane taasuu xadiisku tilmaamay falamaa jaawaza markay gudbeen oo ay ka tallaabeenay dhaqaaqeen waayo mar allaala markuu soo kacay nebi muuse calayhi salaam socod buu meeshii ka bilaabay meeshii malayga lagu waayey waa meeshii la rabay laakiin wiilkii ma sheegin muuse markuu soo kacay way dhaqaaqeen labadooda markay gudbeen falamaa jaawaza qaala lifataahu muuse wiilkiisii dhallinyaraha ahaa wuxuu ku yidhi aatinaa nasii hadaa'anaa raashinkeenna nasii soo bixi malayga laftigiisa aan cunne
laqad laqiinaa waxaan kala kulannay min safarinaa safarkeenan haada ee kan ah nasaban tacab iyo daale. nebi muuse calayhi salaam safaryo badan buu galay baa la yidhi, weligii safar uu nasab iyo daal iyo tacab uu ka sheegtay ma jirin ilaa kan maahane. sababto waxay tahay kan waa cilmi doon, safarka cilmiga lagu raadiye lamid ma aha safarada kale. xadiidku wuxuu tilmaamayaa safarka cilmiga lagu raadinayo inuu qofku u sahlayo waddadii jannada, jihaadna uu markaa la mid yahay. marka noo soo bixi buu yidhi, waaba noognaye, aatinaa nala imow oo noo keen hadaa'ana qadadeenna, laqad laqiinaa waxaan la kulannay min safarinaa safaale. qaala wiilkii markaasuu xasuustay uu yidhi, ara'ayta waxaad iiga warantaa muusow, id wakhtigii aweynaa aan u dumannayn u hooyanay ila sakhrati sakhradii, buurtii iyo dhagaxii sibsibka ahaa, habeenkii aan seexanaynay oo aan u dumannay. fa innii anigu nasiitu waxaan hilmaamay alxuuta malaygii, wamaa ansaaniihu imana hilmaansiinin ila shaytaanu shaytaan maahane an adkurahu inaan kuu xuso, inaan kuu sheega shaydaan baa i hilmaansiiyey. waatakhada wuxuu ka samaystay malaygii sabiilahu jidkiisa oo filbaxri badda dhexdeeda ahna cajaban wax lala yaabo. shay cajiib badan buu ka sameeyey, waa sarabkii aan soo tilmaannay. malayga meesha uu mara biyaha ma kala qaado markaad badda fiiriso, laakiin kalluunkan kalluun cajiib badan buu ahaa, daliilna waa ahaa, inuu wax tusiyana wuu rabiyey. marka nebi muuse markuu daalkii dareemay uu yidhi, nasii safarkeenaan nasab iyo daal iyo tacab iyo dhib baan kala kulannaye, wiilkiibaa hadloo qaala wuxuu yidhi, ara'ayta waxaad iiga warantaa muusow, id wakhtigii aweynaa aan u dumannoon u hooyanay ila sakhrati sakhradii iyo dhagaxii sakhrada ahaa, wakhtigii iyo habeenkii inta waxoogaa la seexday meesha aada huruday, waayo wiilku ma seexanina waa fadhiyey yoosha. nebi muusena waa hurday calayhi salaam, asagoo u jeeda yooshic iyo malaagii badda ka baxay intuu noolaaday, intaa kabacdiina ka baxay dembiisha baddiina markaa galay asagoo arkaaya. wuxuu islahaa muuse markuu soo kaco u sheeg qiqsada iyo sida ay tahay, laakiin wuxuu tilmaamay inuu iloobay. qaala ara'ayta id awaynaa wakhtigii aan u dumannoon u hooyanay ila sakhrati sakhradii ama buurtii xaggeeda ama dhagaxii, fa innii anigu nasiitu waxaan hilmaamay alxuuta malaygii, wamaa ansaaniihu mana i halmaansiinin ansaaniihu ila shaytaanu shaytaan maahane. wixii xun shaytaan baa loo nisbeeyaa, wixii fiicanna ilaahay baa loo nisbeeyaa subxaana wa tacaala. saa darteed shiilowgan iyo waxyaabaha noocaan ah shaytaan baa loo nisbeeyaa. wixii khayr badan ilaahay baa loo nisbeeyaa. nebi ibraahim calayhi salaam qur-aankay noogu imaan doontaa muxuu yidhi, waidaa maridtu haddaan xanuunsado fahuwa yashfiinii, xanuunka naftiisuu u tiiriya ma dhin hadduu ilaah i xanuunsiiyo. idan akhlaaq xumo waaye, xanuunka naftaadaa loo nisbeeyaa, laakiin caafimaadka ilaahay baa loo nisbeeyaa. waidaa maridtu fahuwa yashfiinii, ilaahay baa i caafiya subxaana wa tacaala. waad u jeedaa meeshaan wiilkan muxuu leeya, wamaa ansaaniihu ila shaytaanu, shaytaan unbaa i halmaansiiyey an adkurahu inaan xuso, inaan kuu sheego oo aan ku xusuusiyo arrintii kuu qabro. shaytaan baa markaa i halmaansiiyey. shaytaan wixii xun asagaa loo tiiriyaa, wax allaala wixii wanaagsan ilaahay baa loo tiiriyaa. ama shaytaanka laf ahaantiisa adaab xumidiisa mar allaala markii amarkii ilaahay uu diiday muxuu yidhi, rabbi bima aqwaytanii, ilaahayow dhumidaad i dhumisay. aqwaytanii buu yidhi, ilaahay buu qawiga iyo baadida u nisbeeyey subxaana wa tacaala. waa khille adabnimo iyo akhlaaq xumo. saa darteed nebi ibraahim iyo waxyaabaha lamidka ah iyo wiilkan yuushiiciyo waxay u hadlayaan akhlaaqda iyo wanaagga sida ay markaa tahay. sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa, haddii wuxuu wax xun yihiinna shaytaana laysaga tiiriyaa, haddii wax fiican ay yihiinna ilaahay baa loo tiiriyaa. waatuu xadiidku tilmaamay riyada xulumga la yidhaahda dhabdhabka ah waxay ka timaadaa shaytaan, riyada wanaagsanna waxay ka timaadaa, ru'ya saalixana waxay ka timaadaa min allahi subxaana wa tacaala. saa darteed baa ilaahay wuxuu noo tilmaamayaa wiilkan iyo nebi muuse markay israaceen oo kalluunkii la waayey
inuu muuse yidhi nasii aan cunne, wiilkiina yidhi habeenkii aan u hooyanay sakhradii fa innii nasiitu alxuuta wamaa ansaaniihu ila shaytaanu, shaytaan mooye wax kaloo halmaansiye ma jiro, an adkuraha. waittakhada wuxuu ka samaystay sabiilahu jidkiisii oo filbaxri badda dhexdeeda ahaana cajaban, wax cajiib lahoo lala yaaba. qaala wuxuu yidhi muuse daalika kaamaa waaye kunnaa aan ahayn nabqi kuwii dalba. war meel kale maan raadinaynay, meesha malaa'igaa lagu waayo ama uu ku baxo waayo meesha aan dalbaynay. qaala daalika maa, kaasi waa meeshii kunnaa aan ahayn nabqi kuwa dalba oo raadiye neceli. fartaddaa, markaasay ku soo laabteen calaa aahaarihimaa, raadadkoodiibay kusoo kor laabteen qasasan ayagoo raad guraaya, ayagoo raad raacayo lugtii meeshii ay dhigeen iyo saantii fiirfiirinaya, meeshii ay soo mareen say ugu noqdaan qasaska, ayagoo israad guraaya oo raad raacaya raadkoodii hore ayay laabteen oo raadkoodii ku noqdeen. qaala nebi muuse wuxuu yidhi markii arrintii loo sheegay, daalika maa kunnaa nabqii, meeshaa waa meeshaan dalbaynay. war meesha malaa'iga lagu waayay inaad ii sheegtaa fiicneyd, meeshaas waaye meeshii aan raadinaynay. qaala daalika, kaasi maa waaye buu yidhi kunnaa aan ahayn nabqii kuwa markaa dalbay raadiyeen neceli. fartaddaa, markaasay soo laabteen, waxay ku soo noqdeen calaa aahaarihimaa raadadkooda, raadkii marka hore ay ku yimideen bay dib ugu laabteen qasasan, ayagoo isku qisoonaya, haddii kale ayagoo sheekaysanaya yay dib ugu laabteen, ama ayagoo raad guraaya oo raadkoodii hore dib u raacaya, kaasay markaa ku noqdeen. say u socdeen fawajadaa cabadan, addoon bay heleen oo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah, aataynaahu aan siinay raxmatan naxariis min cindinaa agteena aan ka siinay, wacallamnaahu oo aan barnay min ladunnaa agteena cilmi aan ka barnay, waa ninkuu nebi muuse raadinaya, waa khadir calayhi salaam. khadir waaye mar allaala markuu nebi muuse u tegey, xadiidka nebiga wuxuu ku tilmaamayaa khadir buu u tegey oo go' burde ku duuban, asagoo go-iisa saa ugu duuban ayuu dul istaagay buu yidhi assalaamun calayk, nabadgelya korkaaga ha ahaato. khadir wuxuu yidhi arladan xaggay salaantaan uga timid, war ma muusaa tahay? haa, muusaan ahay buu yidhi. ma muuse ibnu cimraan baa tahay? haa. markaasaa la soo dhoweeyey. fawajadaa, way heleen waayu nebi muuse iyo shaabkiisii cabadan adoon oo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah. inta badan nebiyada ayuu ilaahay aad ugu nisbeeyaa addoonnimada, saa darteed khadir inuu nebi yahay iyo inuusan ahayn baa doodii ka taagan tahay, balse annagu waxaan ku wadaynaa inuu nebi ahaa calayhi salaam, nebi khadir calayhi salaam. waayo inta badan addoonnimada taasaa loogu tilmaamaa laguna sheegaa nebiyada, ilaahayna aada ugu ammaanaa, waayo cubuudiyanimo qaas ahay markaa leeyihiin. fawajadaa cabdan, addoon bay heleen oo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah, aataynaahu raxmatan naxariis min cindinaa agteena aan ka siinay, wacallamnaahu aana ka barnay min ladunnaa agteena cilmi aan ka barnay. mar allaala markay qisadu meesha maraysay, wiilka qisadiisa meeshaasay ku eg tahay asaga, dib dambana loo soo qaadi maayo. muuse iyo khadir baa sheekada watay, wiilkii aaway, waa suuragal inuu ka haray meesha, inuu la socdoon la soo qaadin hadalkiisa. waxaa suuragal ah ilan ujeeddada iyo hadafka loo soo kaxaystayba dembiisha malaaga inuu soo qaaday ahayd, ninkaana la helo. waa suuragal mar allaala markii la helay nebi muuse inuu yidhi orod dib u laabo oo reerkii ku noqo, laakiin khadir iyo muusena ay arrintaa dhex martay. qaala lahu, wuxuu ku yidhi ninkii khadir ahaa ama addoonkaa addoommada ilaahay ka mid ee cilmiga ilaahay siiyey, naxariistana agtiisa uu ka siiyey baa muusa. nebi muuse wuxuu ku yidhi hal attabicuka, maku raacaa buu yidhi calaa an tucallimanii, inaad i barto mimaa kii xaggiisa cullimta lagu baray, rushdan wax toosan oo hanuun ahoo thawaab ah inaad iga bartaan rabaa, ee maku raacaa. waa ku raacaa ma dhihina maku raacaa buu yidhi, waa akhlaaqda wanaagsan. qofka saasoo wax loogu bandhigaa, hal attabicuka, ma ii saamixi kartaa inaan ku raaco? ma ii ogolaanaysaa inaan ku raaco
ujeeddada aan kuu raacayo wax kale ma ahee faa'iida doon baan ahay calaa an tucallimanii inaad iga barto mimaa cullimta rushdan wixii lagu baray xaggiisa shay rushdi ah oo toosan oo hanuun ahoo thawaab ah inaad iga bartaan rabaaye ma ku raacaa. qaala khadirna wuxuu yidhi innaka adigu lan tastatiica ma awoodi kartid maciya aniga la jirkayga iyo micigayga sabran dulqaad iyo adkaysi. qofka marka la raba in wax la baro waa inuu sabir leeyahay, waa kow. waa inuu ka dambeeyaa kana ixtiraamaa macallinkiisa, waa labo. waa inuu yahay qof waxa la barayo jaahil markaa ka ah, ileen qof wax yaqaano wax lama bari karo. qofka wax yaqaana waxbaan barayaa haddaad dhahdo maantoo dhan wuu ku qabsanaa, maxaasaa ka waday kan maxaa ka waday soo siitaa la yidhi macnaa qofku mar allaala markuu kaa cilmi liito yaa waxbaridda ku fiican tahay. idan waa afeefanaya khadiro wuxuu leeyahay innaka lan tastatiica maciya sabra aniga micigayga sabir markaa ma awoodi kartid. nebi muuse calayhi salaam waxaa laga fahmayaa meeshana laga qaadanayaa cilmiga inuusan dhammaanin. waayo khadir iyo muuse mar allaala markay wada kulmeen nebi muuse ilaah baa kitaabkiisa ku ammaanay yaa muusaa in istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii. muusow dadka waxaan kaala doortay risaaladaydii kalaamkaygii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin. saa darteed wuu xiraysanayaa. nin xaggiisa cilmi loogu tilmaamuu rabaa inuu aado, idan cilmiga ma dhammaado. wuxuu ka bilowdaabaa la yidhi mahdiga iyo dhabku jirta iyo gogosha hooyada ciyaalka yarkay u samayso ama dhabteeda ilaa laxdiga laga tago. saa darteed muuse mar allaala markuu baxay qaala lahu muusa nebi muuse khadir wuxuu ku yidhi hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad itacliimisood itababartood i barto mimaa cullimta kii lagu baray xaggiisa rushdan wax toosanoo thawaab iyo hanuun markaa ah. qaala qadir wuxuu yidhi innaka lan tastatiica adigu ma awoodi kartid maciya aniga micigayga sabran sabir lama awoodi kartid. wa kayfa tasbiru seed u sabraysaa ood ugu sabirtaa calaa maa shay dushii lam tuxid aadan koobin bihi shayga khubran ogaalkiisa. waxaada qabarkiisa iyo arrintiisa iyo ogaalkiisa aadan koobin seed markaa ugu sabraysaa. waa suuragal muuse inuu yidhi waan sabrayaa. markii loo yidhi innaka lan tastatiica maciya sabra waan sabrayaa buu yidhi ilaa cilmi doon waaye anaa dan leh. markaasuu khadir yidhi wa kayfa tasbiru seed u sabraysaa ood ugu sabirtaa calaa maa shay korkii lam tuxid bihi aadan koobin shayga khubran ogaal iyo khabarkiisii wuxuu markaa yahay. qaala nebi muuse wuxuu yidhi satajidunii waad i heli doontaa in shaa allahu hadduu ilaah yidhaahdo saabiran saabir inaan ahay mid sabrayo adkaysanaya ilaa cilmiga aad iga bartoon wax kaa barto wixii lagu baray hanuunka waad i heli doontaa rabbi haddii laga helo inaan saabir ahay. walaa acsii caasinna maayo oo kaaga hor imaan maayo oo ma diidaaye laka adiga amran amar kugu diidi maayo buu dhahay. wax kastood samay i dhahda waa samayna, wax kastood samaysa waan kaa aamusa. laakiin nebi muuse wuxuu ku badbaaday in shaa allah buu yidhi. in shaa allah buu yidhi. qaala satajidunii waad i heli doontaa macallinkaygiiyow. satajidunii waad i helaysaa khadirow in shaa allahu haddii ilaahay yidhaahdo saabiran inaan ahay mid sabir badan oo sabraaya adkaysanaya. walaa acsii caasinna maayo laka adiga amran amar kugu caasin maayo. qaala khadir wuxuu yidhi fa in ittabactanii haddaad i raacdo muusow falaa tas'alnii ha i weydiinin ha iga weydiin can shay-in shay xaggii xataa uxditha ilaa aan sheego oo aan xadiideeyo oon kaaga waramo laka adiga minhu shaygaa xaggiisa dikran xuskiisa waxa uu yahay ilaa aan kaaga sheego ilaa aan kuu cusboonaysiiyoon kaaga waramo arrintaa waxay tahay aamusay dhegayso ina daba soco hadalna ha igu soo celinin waxna ha i dhihin waxaan sameeye iyo waxaan hadleeye iyo waxaan fiicneeye iyo waxaan ku hadlaba adiga aamus buu yidhi. qaala qadir wuxuu yidhi fa in ittabactanii haddaad i raacdo
waayo raacid baad doonaysaa, cilmi inaad iga siyaadsatana waad rabtaa. sidaa darteed ogow haddaad iraacda falaa tas'alnii, afkaaga qabso, ha i su'aalin can shay-in shay xaggii xataa uxditha ilaa aan kaaga xadiideeyo oon kaaga warramoon kaaga sheego laka adiga minhuka xaggiisa dikran xuskiisa. waxa uu yahay ilaa aan kuu sheega adigu ha hadlin. balan baa la kala galay, waa la soo dhaqaaqay. xadiidka bukhaariga waxa uu leeyahay nebi muuse iyo khadir way soo dhaqaaqeen. waxaa lagu soo socday badda xeebteeda, waxaa ka daba timid doontaas waxaa la gartay khadir. labadoodii doontii intay istaajisteen ayay soo koreen. khadir baa la gartay. khadir markii la gartay waa la qaadoo waxaa la yidhi asaga iyo saaxiibkiiba hal la qaada bikayri nooli la-aan, lacag la-aan baa lagu soo qaaday. mar allaala markii doontii ay soo xiratayay timid meeshii ay dadkii ka wada daateenay ka degeen, khadir iyo muuse keliya ku haray sida xadiidku tilmaamay. shimbir baa timid. shimbirtii waxay ku istaagtay buu yidhi nebiga xaraf ama daraf ama dhinac ka mid ah doonta. badday ka cabtay nuqra ow nuqratayn, hal dhufasho afdhufasho ama laba afdhufasho. mar allaala markay shimbirtii hal mar ama laba mar biyihii ka cabtay yaa nebi muuse khadir la hadloo, khadir baa hadloo wuxuu yidhi muusow cilmi baa laysiiyo lay baray, adiga aan lagu siinin oon lagu barin. adigana cilmi baa taqaanaa oo aniga aan lay siinin. cilmigaaga iyo cilmigayga marka laysku daro, cilmiga ilaahayna loo barbar dhigo, kama nusqaaminaya midkana la siiye kan rabbi, ilaa shimbirtan waxay biyaha badda ka nusqaamisay maahane. wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan baa noo imaan doontaa. cilmiga xaggiisa laydinkama siin ilaa wax yar maahane. sidaa darteed ayaa mar allaala markii ay sidaa isdhaheen khadir waa istaagay. loox ka mid ah alwaaxyadii doonta yuu fujiyey. intuu saa usoo fujiyey ayaa wuxuu ku tuuray doontii dhexdeeda. taasuu ilaahay noo bilaabayaa, darsigii baa loo bilaabay. fainطalaqaa way tageen, waa khadir iyo saaxiibkiisii muuse, xataa idaa rakibaa ilaa ay koreen fi safiinati doon, kharaqahaa wuu dilaaciyey, marka wuu fujiyey. doontii waa intaan hadda soo tilmaanaye markay xeebtii ku soo xiratay yay dadkii ka wada tageen. markay ka degeenoo shimbirka arrintaasi cibrahaan uu u tusaaleeyey yuu ka fujiyey khadir calayhi salaam. wuxuu ka fujiyey doontii hal alwaax. fainطalaqaa way tageen nebi muuse iyo khadir xataa idaa rakibaa ilaa ay koreen ama ay raaceen fi safiinati doon, kharaqahaa markaasuu fujiyey, alwaax buu ka fujiyey. qaala nebi muuse wuxuu yidhi aqaraqtahaa ma dilaacisay, lituqriqa say u biyo cabsiisay, u maashayso ahlaha ehelkeeda. dadkii inay hadhow biyo cabsiisay qarqoomaan miyaa saa u samaysay? waa fasahaad. waayo doon la fujiyey, haddii hadhow wiilashii ay yimaadeen intaa kabacdi ay dhaqaajiyaan, biyo ay soo gasha doontii ay qarqoosumaan ayagoo dhan oo ay biyihii ku hafdaan ay ku dhintaan, sow dhib ma aha. laqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay ayaad la timid, imran oo weyn, shay cadiim ah, wax weyn baad la timid. weliba xadiidku wuxuu tilmaamayaa qoom nooli la-aan nagu soo qaaday oo lacagba aan naga qaadanin, maadoontoodii intaad u qasaday alwaax ka fujisay. laqad ji'ta shay-an imran, arrin culus baad la timid khadirow. saan wax ma aha buu yidhi, waxbarashana ma ahan, saa waxbarasho ma gasho. khadirow waxaa samaysay waa maxay? doontan maxaad u fujisay? qaala fainطalaqaa way tageen, way dhaqaaqeenoo way socdeen saaxiibkii iyo qadirba, muuse iyo khadirba, xataa idaa rakibaa ilaa ay raaceen ay koreen fi safiinati doontiisaan tilmaanay lacag lagama qaadin. kharaqahaa wuu dilaaciyo doontii buu fujiyey khadir. qaala nebi muuse akharaqatahaa buu yidhi ma waxaad dilaacisood fujisay, lituqriqa say u maashaysa ahlaha ehelkeeda. laqad ji'ta waad la timid shay-an shay ayaad la timid, shaygaasoo imran aad yaad markaa u weyn. qaala qadir wuxuu yidhi inan horaa loogu sheegaye alam aqul sow kuma oran innaka adiga lan tastatiica ma keri kartid maciya anila jirkeygii micigayga sabran sabir iyo dulqaad iyo adkaysi ma keri kartide niyo aan kala tagno sow kuma dhihin. waa tanaa tii koowaadba meel lama gaarin.
hadda le doon aan fujiyo alwaax ka fujiyey, wax kale maba qabanba, wax kale ma samayn. waa taad cawaadeed qaylisay, waa taad aamusi weysay. horeyna waxay ahayd waxba ha i weydiinin, adigana waxaad ballan qaaday walow insha allah aad ku dartay inaad sabri doonto, amarkayga aad caasin doonin, aad ii hogaansamaanaysid, casharkii waxaan ku sii aad ogolaanaysid. waatana wax laguma bari kara, hadda soo kuma dhihin. qaala alam aqul miyaanan dhihin qaala alam aqul miyaanan ku dhihin innaka adiga lan tastatiica ma kari kartid macii ani micigaygii la jirkayga sabran sabr iyo dulqaad iyo adkaysasho. qaala nebi muuse wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu wixii aan hilmaamay. hilmaan bay uga dhacday buu dhahay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam midii koowaad muuse wuu iloobay. sababtu waxay tahay waxaana wax loo adkaysan kara ahaynba, wax loo dulqaadan kara ma aha inuu ballan qaaday waxaa ilowsiiyo ka tambadiyey qoom intay lacag la-aan soo qaadeen doontoodii alwaax ka fujiyey. qaala wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu hilmaashii aan hilmaamay sababteeda, walaa turhiqnii hana igu kalifin oo ha igu mashaqaynin min amri amarkaygu ha igu xambaarin cusran wax culays badan waxaan la xambaari karin. macalinow adiguna aayar buu yidhi alwaax la fujiye iyo doon la jejebiye iyo wax loo adkaysan kara ma aha, anigana waan hilmaamay iska kay saamax buu yidhi ha ii qabanin. qaala laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu hilmaashihii iyo ilowgaygii sababtiisa, walaa turhiqnii hana igu kalifin oo ha igu mashaqaynin min amrii amarkayga xaggiisa cusra wax culays ah, waxaan la xamili karin oo laga aamusi karinna ha samayn buu yidhi. ballan baa la kala galay, haddana midbaa waa laga saamaxay. sababtu waxay tahay waa nisyaan. bani aadamka nisyaanku waa u sabab oo wuu ka qalqan yahay. saa darteed baa waxaa loo baahan yahay qofku markuu hilmaamo xataa ilaahay subxaana wa tacaala wax badan buu noo cafiyey. rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhta'na, haddaan hilmaano ama aan gafno. marka waa laga saamaxay. tii koowaadna nebi muuse nisyaan iyo ilow bay uga dhacday, waa la saamaxay. fainطalaqaa way tageen, haddana waa la dhaqaaqay. xataa idaa laqiyaa ilaa ay la kulmeen ghulaaman wiil faqatalahu wuu dilay. khadir baa wiilkii intuu u tallaabo qaaday qaaqabtay oo markaa dilay. tii horba tanaa ka daran. qaala muuse wuxuu yidhi aqatalta nafsan ma nafaad dishay haddana zakiyatan oo tahiran bigayri nafsin naf kayrkeed naf ay dishay ayadooynan jirin miyaad naf dishay? laqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay nukran oo la inkiro. tii hore muxuu yidhi imran, tan baa ka daran. tii hore alwaaxle la fujiyey waa jamaadaad, waa qori, laakiin naf baa kow la siiyey. hadda nukran buu isticmaalay nebi muuse calayhi salaam. laqad ji'ta shay-an nukran, tii hore shay-an imran buu yidhi wax weyn baad la timid, laakiin wax weyn way kasii weyn tahay. tan waa wax la inkiro, waa waxaan loo dulqaadan karin buu ula jeedaa, waa waxaan laga aamusi karin. fainطalaqaa way tageen xataa idaa laqiyaa ilaa ay la kulmeen ghulaaman wiil faqatalahu waa uu dilay khadir wiilkii. qaala aqatalta nafsan, madax intuu gacanta saartay yuu nebi muuse yidhi aqatalta nafsan ma naf baad dishay haddana zakiyatan tahiran naf zaki ah bigayri nafsin naf ay dishay keyrkeedayn markaa jirin bigayri nafsin naf keyrkeed. laqad ji'ta waxaad la timid macallinow shay-an shay nukran la inkiro, maba ka ogolaanay buu dhahay. tan ma aha mid la ogolaan karo. xadiidku wuxuu tilmaamayaa markay soo dhaqaaqeen ayaa waxay soo mareen wiil ciyaal la dhex ciyaaraya, wiil ciyaaraya khilmaan iyo caruurna ku dhex ciyaaraya. khadir baa intuu saa u dhex galay uu fiirfiiriyey, hal canug buu ka soo qabtay faqatalahu see buu u dilay. ilaah baa yaqaana. xataa idaa laqiyaa ghulaaman faqatalahu, qaar waxay tilmaamayaan intuu qabto madaxa gidaarka kugu dhuftay, markaasaa maskaxdii qarxatay, saasaa dhib umtaqaanaa ku gaara wiilkii dhintay, ama wuu dabaxo wuu gowracay. say noqotaba ilaahba xaqiiqda yaqaanee rabbi wuxuu noo tilmaamayaa inuu dilay wuxuu ku dilaba. fainطalaqaa way tageen xataa idaa laqiyaa ilaa ay la kulmeen ghulaaman wiil faqatalahu wuu dilay. khadir baa wiilkii dilay. qaala muuse wuxuu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ta waxaad la timid shay-an arrin baad la timid haddana nukran ee la inkiro. qaala tii hore soo looma saamixin. qaala wuxuu yidhi khadir haddana alam aqul miyaanan kugu oranin laka adiga
tii hore laka looguma darin. qaala alam aqul inaka lan tastatiica maciya sabran, miyaanan ku dhihin waaye tanna miyaanan kugu dhihin waaye. qaala alam aqul laka, miyaanan adigu kugu dhihin, miyaan ku dhihin miyaanan kugu dhihin. way kala adag tahay, waayo shalaad ilmaantay, ilow baa kaa dhacay, waa lagu saamaxay, aan badila ee wixii raba aan sameeye, maxaa kaa hadalsiiyey? miyaanan kugu dhihin adiga inaka adiga lan tastatiica ma kari kartid, ma awoodi kartid oo yuwaad uma lihid maciya ani micigaygii la jirkayga sabran sabri adkaysi. niyo nin wax la bari karaa ma tihid. waad u jeedaayo wax waan kaa samayn la'ahay, waad u jeedaayo waad dhegaysan la'dahay, wixii waad fiirsan la'dahay, horaan ballankuugu qaaday xataa uxditha laka minhu dikran, anaa kuu sheegi doonee sugaa ku dhahay, waad sugi la'dahay. alam aqul laka, marka miyaanan adiga kuugu dhihin inaka adiga lan tastatiica ma kari kartid maciya ani micigayga sabran sabr iyo dulqaad. qaala wuxuu yidhi marka nebi muuse, in sa'altuka haddaan ku su-aasho oon ku weydiiyaba can shay-in shay xaggii, bacdahaa midkan kadib falaa tusaaxibni, haba ila saaxibinba, haba i raacin, iska kay buri. waayo qad balaqta waad gaartay min ladunnii agtayda cuduran cudurdaar, wax laygu ceyriyo waad haysataa. waayo mar waan hilmaamay, haddana waan iscelin waaye, ta saddexaad haddaanba hadlo anaa gar darane i buri buu dhahay. laakiin halkaan ii dhaaf waay macnaha. waayo tii koowaad nisyaan bay uga dhacday, tii labaadna waa tu iscelin waayey, ta saddexaad maxaa imaan doona? qaala in sa'altuka haddaan ku su-aalo macallinkaygiiyow can shay-in shay xaggii, bacdahaa midkaan hadda aan ku weydiiyey ka bacdi oo ka dambeeya, falaa tusaaxibnii, haba ila jirin buu yidhi, ha ila saaxiibin, ha i raacin, iska kay buri. waayo qad balaqta waad gaartay min ladunnii agtayda waxaad ka gaartay cuduran cudurdaar, waxaad igu ceyrin karto ayaad haysataa. laakiin tantu ka dambaysa haddaan ku weydiiye xabadaan ii dhaaf haddanee haddaan mar kale la imaado khalaas markaa waxaad leedahay cudurdaar, ila marna waad isaamaxday, haddana waan hadlay soo maaha, mar kale haddaan ku noqsado oan mar kale sameeyo iburi buu yidhi. faintalaqa way tageen, way israaceen oo way dhaqaaqeen, xataa idaa atayaa ilaa ay soo mareenay u yimaadeen ahla qaryatin, qaryo ehelkeeda, istadacamaa way quud weydiisteen ahlahaa ahelkii qaryada deganaa, fa abow way diideen oo way u diideen an yudayifuuhumaa in la martiqaado, labadooda inay dayaafeeyaanna way diideen qaryadii dadkii deganaa. fawajadaa waxay heleen muuse iyo khadirba fiiha magaaladii raashinka looga diiday gudaheeda jidaaran derbi yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco ama uu dumo. fa aqaamahu khadir baa toosiyey. marka khadir baa markaa dhisay. maxay ahayd arrintu? inuu shib iska dhaha ma hayno, wuu iscelin waayey nebi muuse. qaala wuxuu yidhi, maxaa ugu dhistay kuwa sootay noo diideen raashinkooda? low shi'ta haddaad dooni lahayd, low shi'ta latakhadta waad yeelan lahayd oo waxaad ku qaadan lahayd calayhika korkiisa ajran ajraad ku qaadan lahayd. qoom noo diida raashinkoodii, na marti qaadi waaye, na soo dhoweyn waaye, yaa derbigoodii u dhistay, war orda ujro ka soo qaado. quraac bay noo diideen, waa baahannahay, qaday noo diideen, waan baahannahay, cashaa nagu soo socota, saa darteed baad gidaar u dhistay. gidaarkii haddaad u dhistay xataa haddaad rabto kani ujraad uga qaadan kartaa, ka soo qaado ord meesha ha fadhinine. saasay markaa dhaheen. faintalaqa way tageen xataa idaa atayaa ilaa ay u yimaadeenay soo dulmareen ahla qaryatin qaryo ehelkeeda, qaryo meel degan, magaalo ama tuulo. istadacamaa markaasay quud weydiisteen nebi muuse iyo khadirba ahlahaa ehelkeedii, qaryadii ehelkeeday dhaheen war waa baahanahee waxna siiya. fa abow an yudayifuuhumaa way diideen qoladiina inay diyaafeeyaan, inay martisooraan. waxaa la yidhaahdaa qaryo ka xun ma jiro qaryadan, waayo laba nebi bay ka seexdeen, laba nebi oo baahan yay diyaafeyn waayeen. laba nebi oo qiimo badan waayo, diyaafadu waa waajib. qof markaad usoo martido adoon waxba haysan, jiif iyo raashin hadduu kuu diido, dowlo islaama hadday jirto qasab bay ku tahay in xoog looga qaado laguna siiyo. saa darteed ma samaynin ayaga. fa abow an yudayifuuhumaa way u diideen oo way diideen inay martigeliyaan labadii nebi. fawajadaa
isla markii waxay fiiha magaaladii gudaheeda ka heleen jidaaran derbi yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco ama uu dumo fa aqaamahu wuu istaajiyey wuu toosiyey ama wuu dhisay. qaala wuxuu yidhi nebi muuse low shi'ta haddaad rabi lahayd khadirow latakhadta waxaad ka qaadan lahayd ood ka samaysan lahayd calayka korkiisa ajran ujaro. waa wax bay noo diideen, khalaas way dhammaatay. qaala khadir wuxuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik, kani waa firaaq, kani waa kala tageeni ani iyo adiga. asaa isxugmiyey. nebi moxamed wuxuu yidhi baa la yidhi sal alla alayh wasalam raxima allahu muusa, alla nebi muuse ilaahow naxariisto, nebi muuse ilaahow u naxariiso. waxaan jeclaan lahaa inuu iska sabro. alla muxuu isaga sabri waaye ilaa arrintooda heerka ay ku dambaysay gabagabada aan ogaano. waa la ceeriyey, hadda waad ujeedaa, alwaax baa doon laga fujiyey, wiil baa la dilay, derbi baa la dhisay. waxa soo socdaa ka cajaa'ib badnaa. allah muxuu u sabri waayey nebi muuse calayhi salaam. allah muxuu u dulqaadan waayey nebi muuse ilaa aan ogaano asaga iyo khadir gabagabadooda heerkay markaa ku dambayso. waxaan wax ka dambeeya la samayn lahaa. qaala haadaa kani firaaqun, waa firaaq, waa kala tageenii buu yidhi baynii wa baynika, ani iyo adiga, beynkaygii beynkaaga. sa unabi'uka, waxaanse kuu warrami doonaa oon kaaga warrami doonaa bita'wiili maa shay ta'wiilkiisii lam tastatic aad kari weysay calayhi korkiisa sabran sabirka. waxaa u adkaysan weysayoo dushiisa aad ku sabri weysay haddaan kuu sheegaa ay dhegayso. intaasaad samayn weysay waa leeyahy, intaasaad adkaysan weysay. horey waan kula ballamo, waxbaan kuu sheegay, arrin baan kuga soo qaado, waad samayn weysay. waxaan ku yidhi anaa wax kuu sheegi doonay aamus, war iska kay dul soco, war iska kay daba soco, adiga anaa wax kasta kaa tilmaami doona oo kaa dharjin doona. waad adkaysan weysay, qori baan fujiyey, waad qaylisay, canug baan dilay, afkaad mutaqaanaa kala qaaday, mutaqaanaa derbi baan dhisay, waatana aad leedahay maxaad ugu dhistay. qaala haadaa firaaqun, qaala haadaa firaaqu, kani waa firaaqeenii buu yidhi. waa kala tag, waa isku soo noqosho ma jirto, orod iska bax, nin wax la bari karaa ma tihid. waa firaaqa baynii wa baynika, beynkayga iyo beynkaaga aan ku kala tegayno. khalaas waa kala tegaynaa. laakiin sa unabi'uka, waxaan kaaga warrami doonaa, waxaan kuu qabri doonaa, waxaan kuu sheegi doonaa bita'wiili maa fasiraadiisii, kii ta'wiilkiisii baan kuu sheegi doonaa lam tastatic aad kari weysay calayhi korkiisa sabran sabirka. wixii yaraa ee aad u adkaysan weysay anaa kuu sheegi doonaa ayuu yidhi khadir calayhi salaam. habeen dambaanu arki doonaa suu markaa ugu fasiro iyo waxyaabaha uu markaa ku sameeyo khadir nebi muuse calayhi salaam. waid qaala muusa lifataahu, wadkur xus, waid wakti qaala uu yidhi muusa nebi muuse, waid qaala muusa lifataahu, waid qaala muusa lifataahu, waid wakti qaala uu yidhi muusa nebi muuse lifataahu shaabkiisii uu ku yidhi laa abraxu, ka istaagi maayo, ka zuuli maayo inaan socdo, xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni, labada badood meeshay ku kulmaan, ow amadiya ama aan socdo xuquban zaman dheer. falamaa balagaa, markii ay gaareen majmaca meeshii ay ku kulmayeen baynihimaa, labadaa badood dhexdooda, nasiyaa waxay iloobeen xuutahumaa kalluunkoodii ama malaayigoodii. faاtakhada wuxuu ka samaystay sabiilahu jidkiisuu ka sameeyey filbaxri badda dhexdeedaa saraban wado, meel huul ahoo la galo oo inta cabbaar lagu socda gadaal ka soo xirantaa ayuu mataqaanaa ka sameeyey. falamaa jaawazaa, markii ay gudbeen, qaala lifataahu, shaabkiisii iyo wiilkiisii ayuu ku yidhi aatinaa nasii hadaa'anaa, qadadeena, laqad laqiinaa, waan kala kulannay, min safarinaa, safarkeenna haadaa ee kan ah, nasaban, daal baan kala kulannay. qaala nebi muuse wiilkii wuxuu yidhi an ra'ayta, waxaad iiga warantaa id wakhtigii aweynaa aan u dumannay oon u hooyanay ila asakhrati, dhagaxii xaggiisa. fa innii anigu nasiitu, waxaan hilmaamay waan soo iloobay alxuuta malaygii, wamaa ansaaniihu, mana i halmaansiinin ila ashaytaanu, shaytaan maahee,
wax kaloo i halmaansiiyey an adkurahu inaan kuu xusoon kuu sheego ma jiraan shaytaan ahayn. waitakhada wuxuu ka samaystay galluunkiina sabiilahu jidkiisii oo filbaxri badda dhexdeeda ahaa cajaban wax lala yaabo. qaala wuxuu yidhi daalika kaa maa meeshii waaye kunnaa aan ahayn nabqi kuwa raadiyee oo dalbeenna celi. fartaddaa waxay ku soo laabteen calaa aahaarihimaa raadadkooda dushiisa qasasan ayagoo raadraacaya ayagoo israad guraya. fawajadaa waxay heleen cabadan adoon min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah aataynaahu oo aan siinay raxmatan raxmad iyo naxariis min cindina agteena aan ka siinay. wacallamnaahu oo aan ka barnay min ladunna agteena cilman cilmi. qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii muusa nebi muuse wuxuu ku yidhi hal attabicuka walaalow ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad i barto sababteeda ama dusheeda mimaa cullimta wixii lagu baray xaggiisa rushdan wax toosanoo hanuun ah. qaala wuxuu yidhi innaka adiga lan tastatiica ma awoodi kartid maciya ani micigayga sabran sabir. wa kayfa tasbiru seed ugu sabraysaa calaa maa shay korkii lam tuxid aadan koobin bihi shaygaa khubran ogaalkiis waxa uu yahay. qaala wuxuu yidhi nebi muuse satajidunii waad i heli doontaa in shaaa allahu hadduu ilaahay yidhaahdo saabiran mid saabir ahoo sabraya inaan ahay. walaa acsii caasinna maayo laka adiga amran amar kugu caasin maayo. qaala wuxuu yidhi khadir fain ittabactanii haddaad i raacdo muusow falaa tas'alnii ha i su'aalin can shay-in shay xaggiisa xataa uxditha ilaa aan kaaga waramo oon kaaga sheego laka adiga minhuka xaggiisa dikran xuskiisa waxa uu yahay. fainطalaqaa way tageen xataa idaa rakibaa ilaa ay raaceenay koreen fi safiinati doon kharaqahaa wuu dilaaciyey khadir. qaala muuse wuxuu yidhi aqaraqtahaa ma dilaacisay oo ma fujisay lituqriqa ahlaha say ehelkeeda u maashayso. laqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay imran oo weyn. qaala khadir wuxuu yidhi alam aqul miyaanan ku dhihin innaka adiga lan tastatiica ma awoodi kartid macii anila jirkaygii micigayga sabran sabir. qaala wuxuu yidhi muuse laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu nasyaankaygii ilowshahayga sababtiisa ha ii qabanin ilowba iga dhacday. walaa turhiqnii hana igu cuslaynin oo ha igu mashaqayn oo ha igu kalifin min amri amarkayga cusran wax culusoon la qaadi karin. fainطalaqaa way tageen xataa idaa laqiya ilaa ay la kulmeen gulaaman wiil faqatalahu waa uu dilay. khadir baa wiilkii dilay. qaala muuse wuxuu yidhi alqatalta nafsa ma nafaad dishay haddana zakiyatan oo tahiran bigayri nafsin naf kayrkeed. laqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay nukran la inkiro shareecada iyo caqligaba lagu inkiro. qaala wuxuu yidhi alam aqul miyaanan kugu oranin laka adiga innaka adiga lan tastatiica ma awoodi kartid macii ani micigaygii la jirkayga sabran sabir. qaala wuxuu yidhi muuse in sa'altuka haddaan ku su'aalo oon ku weydiiye can shay-in shay xaggii bacdahaa middaan kadib tii hore waan hilmaamay middaan hadda waa ku weydiiyey tu saddexaad oo tan ka dambaysa haddaan ku weydiiyo falaa tusaaxibnii haba ila jirin buu yidhi haba ila saaxibna iska kay ciiri waayo qad balaqta waad gaartay min ladunnii agtayda cudran baad ka gaartay waxaad igu ciirin kartid iyo cudurdaar aan ku baxayo. fainطalaqaa way tageen xataa idaa atayaa ilaa ay yimaadeenay soo mareen ahla qaryatin qaryo ehelkeeda istadacamaa way quud weydiisteen ahlahaa ehelkeeday quud weydiisteen fa abow way u diideen an yudayifuuhumaa inay marti qaadaan inay marti sooraanna waa loo diiday. fawajadaa waxay heleen fiiha magaaladii gudaheeda jidaaran gidaar iyo derbi yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo ee u dhaco. fa aqaamahu wuu dhisay marka wuu istaajiyey. qadir baa joojiyey derbigii. qaala wuxuu yidhi low shi'ta haddaad rabi lahayd latakhadta waxaad ku qaadan lahayd ood ka yeelan lahayd calayhi gidaarkaa dushiisa ajran mushqaayad iyo ajir ila waad u dhistaye.
qaala qadir wuxuu yidhi haadaa firaaqun kani waa kala tageeni waa firaaqeenii baynii ani iyo wa baynika adi noo dhexeeyey meeshaan ku kala tegi lahayn sa unabi'uka sawaanse kuu sheegi doonaa oo waxaan kaaga sheekayn doonaa oon kuu qabri doonaa oon kaaga warami doonaa bita'wiili maa fasiraadeeda lam tastatic aad kari weysay calayhi korkiisa sabran sabirkiisa ayaan kuu sheegi doonaa wuuse u sheegi doonaa haddii rabbi idmo iyo darsigeena nagu soo socdo haddii rabbi yidhaahdo wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam.